السلام عليكم. magacaygu waa maxamed jaamac ali ku soo dhaw caalan academy. farsamada gacanta waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka ugu muhiimsan ee aynu kaga bixi karno maanta caqabadaha ugu waaweyn ee na hortaagan ee ah shaqo la'aanta iyo sidoo kale wax soo saar la'aanta iyo dhaqaale yarida maanta ina haysata. farsamada gacantu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha adduunka ugu horseeda in ay sameeyaan wax soo saar aad u badan iyo dhaqaale aad u badan. wax soo saar kasta ama production kasta oo loo baahan yahay waxay u baahan tahay in aad taqaano farsamo gacmeed. farsamada gacantu waxay ku horseedaysaa oo ay ka dhigaysaa in aad noqoto qof mar walba super power ah oo isku filan oo aaminsan mar kasta inuu gacantiisa ku ciilbixi karo. haddii ay tahay dhanka wax soo saarka iyo haddii ay tahay dhanka shaqadaba. haddii aad ku shaqo tegayso waxa aad ku heli kartaa shaqooyin aad u badan oo fursadda shaqo ee aad yeelanaysaa aad ayay u badanaysaa marka aad aqoon farsamada gacanta iyo marka aad taqaano marka la isbarbar dhigo. sidoo kalena waxaad noqonaysaa qof wax soo saari kara oo haddii ay ku kalifto samayn kara waxyaabo aad u kala duwan ama productiyo aad u badan oo uu ka samayn karo lacag aad u badan. haddaba rag iyo dumarba waxa aan ku dhiirigelinayaa in ay bartaan farsamada gacanta. lama kala laha rag iyo dumar dhanka farsamada marka ay timaado. adiga oo dumar ah ayaad baran kartaa si aad u noqoto gabadh wax soo saar samaysa sidoo kalena productiyo kala duwan gurigeeda ku samayn karta suuqana u iibgeyn karta. caalan academy waxa uu ku nashqadaynayaa oo ku tababarayaa in aad noqoto qof farsamo yaqaan buuxa ah oo wax soo saari kara waxa uu soo saarana iibin kara suuqa u iibgeyn kara lacagna ka samayn kara. haddaba caalan academy waxaad ka helaysaa dibloomooyin kala duwan oo aad ku baranayso farsamada gacanta oo soconaya mid waliba 3 bilood. dibloomooyinkan waxa aad ku kala baranaysaa number 1 waxaad ku baranaysaa weldingka ama laxaamada waxa loo yaqaano. laxaamadu waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka ugu muhiimsan ee lagu soo saaro wax soo saariyo kala duwan ama productiyo kala duwan oo aad looga faa'iido. number 2 waxa weeyaan waa gypsum boardka oo ay ka mid tahay sida guryaha loo nashqadeeyo sida loo qurxiyo guryaha gidaarada gypsum boardka sida loo sameeyo decorationkan ceiling-ka loo yaqaano ee xagga sare guryaha imika lagu sameeyo qaabka loo sameeyo sida leerarka loogu xidho waxyaabahaas aad ku baranaysaa. isagana number 3 waxa aad ku baranaysaa cladding-ka. cladding-kuna waxa weeyaan waa fooqyada bahalaha lagu xidho sidoo kalena waxa loo isticmaalaa productiyo kala duwan baa laga sameeyaa ama alaabiyo kala duwan waxyaabo kala duwan baa loo isticmaalaa. isna waad ku baranaysaa waa kooraska saddexaad ama dibloomada saddexaad weeyaan iyaduna ee aad baranayso. sidoo kalena dibloomada kale aad baranaysaa afraad waxa weeyaan waa painting-ka waa rinjiyeynta iyadoo oo lagu bari doono lagu tababari doono qaabka wax loo rinjiyeeyo iyadoo hab tayada lagu siin doono oo macallimiin aqoon iyo khibrad dheeraad u leh oo qaarkoodna ay dalka dibadiisa wax ku soo barteen ay ku bari doonaan. sidoo kale dibloomada shanaad ee aad baranaysaa waa electricity-ga oo iyaduna aad u muhiim ah hadday noqoto dhanka guryaha iyo hadday noqoto dhanka wax soo saarka productiyada kala duwan ee ku saabsan electricity-ga. dhammaan maadooyinka kala duwan ee aan soo sheegay waxa ay ku bixi doonaan qaab online ah iyadoo casharada lagu soo gudbin doono hab maqal iyo muuqaal ah oo toos ah oo online ahaana iyadoo xataa practicalka online lagu siinayo si aad uga mid noqoto ardayda caalan academy ka barata farsamada gacanta. waxaad la soo degtaa application-ka caalan academy adigoo kala soo degaya Play Store-ka ama App Store-ka. waxaad ugu horeyn tagaysaa Play Store-ka. Play Store-ka marka aad sidaa u soo furto waxaad halkan sare ku qori doontaa caalan ayaad ku qori doontaa magaca application-ka ku qoraysaa caalan. markaad halkaas sare ku qorto waxa kuu soo bixi doona isla markaaba application-ka caalan. waa kan application-kii caalan. application-ka caalan ayaad soo furi doontaa kadibna waxaad taaban doontaa halka ay ku qoran tahay install ayaad taaban doontaa. install marka aad taabato application-ku wuxuu kuugu dhici doonaa si toosa telefoonkaaga. intaa kadib markaad application-ka soo dejisato waxa uu ku iman doonaa halkan shaashadu ku imanayaa halkan saad ku arkayso application-kii caalan academy ayaa halkan ku yaala. waad soo furi doontaa haddaba si aad iskaga diiwaan geliso. marka aad application-ka sidaa u soo furto waxa uu kugu xidhayaa in aad iska diiwaan geliso oo aad samaysato account. marka aad sidaa application-ka u soo furto waxa uu kugu xidhi doonaa in aad iska diiwaan geliso ama aad gasho account-kaagii hore ee aad isku diiwaan gelisay. haddaba anu imika tusaale ahaan oo kale waxaan ahay arday cusub waxaan rabaa inaan isdiiwaan geliyo waxaan taaban doonaa halkan ay ku qoran tahay sign up ayaan taabanaya. markaas aad halkan ka arkayso waxaan rabaa imika inaan isdiiwaan geliyo magacaygan geliyay iyo magacayga dambe gmail-kayga ama email-kaygan halkan gelinayaa. saad halkan ku arkayso gmail-kayga waan geliyay halkan waxaan gelinayaa password-kayga. password-kaygu waa inuu noqdaa mid adag.
saad arkayso kadibna sign up baan taabanaya wuxuu ku leeyahay successfully sign up si guul ah ayaad isku diiwaangelisay intaa kadib halkan geli gmailkaad isku diiwaangelisay iyo passwordkaagi hadda saad halkan ku arkayso akoonkii aan samaystay ayaan galay intaa kadib waxaan samayn doonaa hadba waxaan daawan doonaa ama aan xulan doonaa kulliyadaha kala duwan ee Caalin Academy ku dhex jira kulliyado badan ayaa ku dhex jira halkan saad ku arkayso waa category-yadii ama waa qaybihii haday noqoto agriculture-kii haday noqoto technical-kii haday noqoto luqadihii haday noqoto geology-gii oo macdinta dhulka ku saabsan dhammaan waxyaabahaas oo dhan ayaad ka helaysaa marka tusaale ahaan oo kale waxaan rabaa kulliyadaha Caalin Academy ka baxa kulliyad kamid in iska diiwaangeliyo tusaale ahaan oo kale Englishka ayaan iska diiwaangelinayaa lagu baranayo 6 bilood kadibna bishii waa $6 baad ku baranaysaa kaas oo kale ayaan iska diiwaangelinayaa 6 bilood baad ku dhamaynaysaa oo qof kasta oo Englishkiisa rabo inuu bilow ka bilaabo oo kale ayaa dhigan kara marka tusaale kugu siinayaa bay baad taabanaysaa halkay ku qoran tahay halkan waxa lagu leeyahay waa qiimihii kulliyadda aad ku baranaysay kadibna waxa aad samayn kartaa laba hab ayaad isku diiwaangelinaysaa in aad la xiriirto WhatsApp-ka oo hawlwadeennada Caalin Academy ay ku soo fasaxaan koorsada ama kulliyadda aad rabto inaad iska diiwaangeliso sida qoraalkan halkan kugu qoran ama in aad ku bixiso lacagta koorsada ama kulliyadda sida SAD Sahal EVC Plus iyo wixii la mid ah marka laga diiwaangeliyo ee lagu soo fasaxo koorsada aad baranayso ama kulliyadda aad rabto inaad barato waxaad ka helaysaa kulliyadaha iska diiwaangelisay halkan my courses ay ku qoran tahay halkan my course marka aad tagto kulliyadihii aad iska diiwaangelisay lagu soo fasaxay ama aad lacagtooda bixisay ayaa halkan ku soo imanaya inta kadib tusaale ahaan oo kale waxaan furayaa farsamada moobilada ama cilad saaristooda kulliyaddan aan ku baranayo sadalkan ku arkayso koorsadi ayaa dhex gashay casharadii ayaa halkan ku yaala marka level 1 level ay kala baxayaan casharadu level 1ka imika tusaale ahaan oo kale level 1 baa imika liisi dayo diyaarsan oo diyaar ah inaan barto casharka koowaad oo kale markaad furayso ama aad baranayso saas oo kale aad soo furaysaa kadibna casharkii ayaa toos kugu soo baxaya sadalkan ku arkayso waa casharkii ama xiisadii koowaad ayaan imika furtay ee koorsada farsamada moobilada sadalkan ku arkayso waxa casharkiiba halkeen yaala oo muuqaal kaleer ah oo si fiican aan u arkayo halkan waxaan ku arkayaa download casharkii sidoo kale waad la dhigi kartaa waxa jirta arday badan ama dad badan oo ka cawda internetkoodu inuu lacag badan ka cunayo ama lacag badan ama qarash badan ka baxayo haddii aad ka warwarayso internetka la dhig casharka ama download garayso adigoo download taabanaya tusaale ahaan oo kale download baan taabtay quality-gaasaan ku dejistay oo kale ama quality-ga kadibna casharkii wuxuu si toos ah ugu dhacayaa telefoonkayga ama gallery-gayga ku dhacayaa halkaas aad ka helaysaa xiisadii oo aad ka daawan kartaa ama aad sidaa doonto ka heli kartaa aad iyo aad baad ugu mahadsantahay daawashadaada fadlan la wadaag asxaabtaada application-kan si ay isaga diiwaangeliyaan ugana